نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، موضوع aad maqlayseen oo ah barbaarinta cunuga wanaagsan ama ciyaalka saalixiinta ah ama caruur wanaagsan waa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah, khaasatan waqtigan aan joogno. runtii mowduucaas marka laga hadlayo waxaad dareemaysaa maanta inuu yahay mawaadiicda ugu muhiimsan oo ugu waaqicisan muxaadarooyinkeenna. muxaadaradaas waxay ku baysgaraysan tahay xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam uu imaamu muslim wariyey saxiixiisa oo uu nebigu leeyahay: wa inna liwaladika calayka xaqa, cunugaagana xaq buu kugu leeyahay. cunugaagana xaq buu kugu leeyahay, nebigu leeyahy sala allahu alay wasalam. muxaadarada insha allah waxaan ka hadli doonaa 4 arrimood. waxaan ka hadli doonaa xuquuqda cunugu uu kugu leeyahay intaadan dhalin ka hor, iyo xuquuqda cunugu marka uu dhasho uu kugu leeyahay. waxaan kale oo ka hadli doonaa marxalo ama ama age cunuga da'diisa ugu muhiimsan, oo da'daas oo laga bilaabo 2 sano ilaa 10 sano laga gaaro saad cunugaaga u tarbiyayn lahayd. waxaan marka ugu dambaysa ku soo gunaanidaynaa talooyin ama naseexooyin qofka waalidka ah cunugiisa siduu ula dhaqmi lahaa ku saabsan. ikhwaani, waxaad ogtihiin haddii aan maanta idin weydiiyo su'aal, haddaan isweydiinno qof walowba cunuga aad dhashay habkii aad ku dhashay iyo procedurkii cunugaas uu ku dhashay meeqaybay kugu qaadatay inaad cunugaa heshid. qof kasta haddii su-aashaa isweydiiyo wuxuu arki doonaa taariikh dheer oo taariikh nololeedkiisii ka mid ah oo uu soo maray intuusan cunugaa dhalin. wuxuu dhihi doonaa guur baan damcay, qofaan guursadaan raadiyey, lacag baan urursaday, odayaal baan u diray gabadhii reerkoodii, aroos baan dhigtay, gabadhii baa la ii nikaaxiyey, waan la aqalgalay, way uuraysatay, uurkii bay ku jiratay, mantag iyo xanuun iyo isbitaal iyo intaasuu ku jiray 9 bilood. waana midda ilaahay uu ku magacaabay wahnan calaa wahnin, waa culays iyo dhibaato ilaa cunuga uu ka dhasho. qof kasta taariikh dheer buu soo maray, intaasna cunug buu raadinayaa. marka cunugii dhashay waan ku bishaaraysanaa, waan ku farxaynaa. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay: almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati اddunya. caruurta iyo maalku waa quruxda adduunka, waa lagu farxaa. qof kasta markuu cunug u dhasho wuu ku farxayaa. dhibkii kaama harine, cunugii waad korinaysaa, umul baad la gelaysaa. aabbaha laftiisa dhinac buu umul ka yahay oo dhibkii baa haysta, isbitaal buu u qaadayaa, habeenkii buu kugu soo jeedayaa, waad korinaysaa ilaa uu ka gaaro cunugii wakhtigii uu ku fahmi lahaa oo aad wax u sheegi lahayd, ood wax bari lahayd. cadaalad miyaa marka
masama waxaa ku jirtaad u maleynaysaan xikmad cunugii intaasoo dhib ah aad u soo martay markii uu caqliyeystay oo uu soo koro inaad cartoon iyo TV iyo intaad ku tuurtid meel kale aad adigu faraha ka qaadid ma caqli ba tusaalahaas wuxuu la mid yahay nin guri dhistay oo kale oo qurxiyay oo dayn qaatay oo kuraas dhigay oo daahiye ku xiray oo markuu wax walba dhameeyay kuraas wax walba uu dhigay albaabada intuu u ballaqay yiri mukulaalaha iyo eeydu guriga ha ku ciyaareen oo ha dageen saasuu la mid yahay sababta cunugaad intaa soo korinaysay ba TV iyo cartoon iyo school public school kaliya aad ku fasaxday oo ku sii daysay waana mid ay ku magacaabaan culimadu wa idha al-maw'udatu su'ilat ayu soo galaya cunuga waa la dilay cunugaas camal waa la dilay wuxuu quraanku noo tilmaamayaa dadka caruurta dhalay inay u qaybsamaan laba qaybood qolo ciyaalkaas ilaahay uga dhigay imtixaan iyo fidno iyo cadow uga dhigay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay inma amwalukum wa awladukum fitna caruurtiina iyo maalkiina waa fitan waa dhibaato inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum xaasaskiina iyo caruurtiina waxaa kamida kuwa cadow idin ah ba kamida cunugaagiyo cadow ku noqday ka waran oo dhib kugu noqday waad ku rafaadaysaa wuxuu quraanku dhinac kale noo tilmaamayaa dad ciyaalkoodii ilaahay uu uga dhigay ilqabowsi iyo beer qabowsi والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إلهي عرورتنا وحنا وقدكتا القبوس نوقدك أنكو القبوسنا ولا شك كمجرو قف كستو إنك نجمد أمانة إنه كادين يعنق وكو القبوس شك ما لأرين تاسي هذا واقع في لسان ما أنت أنكنا والله وأنا وحن موضوع عن نقو خصبة إنا كهذا الله والدين تبضن كودو ويقانن سي عيالك أقوديان عانا أسيان عنتا أسيان در أقو حيران اسكول أقو ديران أسيحيان تشيك أب يا عافيمات أمريان داو أسيان عذر أمريان برفوم أمريان ويقانن لكن بضن كودو ما يقانن عنق عقلي سسي لو كوريو عنق الدين تسسي لو كوريو عنق أخلاق تسسي لو كوريو ما يقانن وأنا أرين حقيقة arintaasan marka waxaan rabnaa insha Allah inaan ka hadalno waxa kale ikhwaani cunug wanaagsan in qofka la siiyo laba sabab ay ku timaadaa cunug wanaagsan qofku inuu helo oo ciyaalkiisu u wanaagsanaadaan laba arimood midkood buu ku helaa mid gifti ah oo ilaahay bixiyo ilaahay wuu bixiyaa sababtoo ilaahay asaga cunuga hibeeya asaga tarbiyeeya cunug wanaagsan qofku uu siin kara walidaalka waxaad arkaysaan qof iska dayacan oo cunug wanaagsan oo baari ay ilaahay siiyay tan labaadna waxay ku timaadaa tarbiyo cunugii la tarbiyeeyo oo wax la baro oo la barbaariyay ku timaadaa haddii sababtii hore aad weydid waad kasban kartaa walidaalka waxaad arkaysaan nabiyadii ilaahay sidoo ilaahay nooga qiseeyay waxay ku celcelin jireen ilaahay ciyaalka noo wanaaji nabiyullaahi ibraahim waxaad arkaysaa dhahaya isagoo ku celcelinaya rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin soo ku celcelinaya wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam ilaahay aniga iyo caruurtayda inaan sanamyada caabudna naga foge fiiri wuxuu leeyahay ilaahay in caruur aan dhalo sanam caabuda oo gaala ah oo macsiyo samaysa iga ilaali markaasuu haddana wuxuu leeyahay in rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu salah rabbi yow caruurtaydii meel baan dejiyay salaadana way tukadaan si ay salaada u tukadaan ilaahay ha dayicin cunugi salaad buu tukadaa wuu wanaagsan yahay ilaahay ha dayicina adigu xifdi waxaad arkaysaa nabiyullaahi zakariya asagoo dhahaya suuratu maryam say ka sheekaynayso wuxuu leeyahay asagoo ducaystay marar badan oo ku celceliyay ayuu wuxuu leeyahay waj'alhu rabbi radiya ilaahay cunugaad isiisid cunug raali laga yahay ka dhig cunug wanaagsan oo baari ah oo aniga igu xiran oo warkayga maqla oo markaan dhinta ii soo duceeya oo ilqabowsi ah ilaahay iiga dhig
ومد أمر البكتو عيستان وأذرك يسان إن ضدك وحق قبضا أي لعقت أبحن ينسعون قال له قد دعيه ساسي النبي ذي الله كد عيسين جرين حتى أولي هي الصقوا قيلنا يا إلهي أولي هي الصقوا محراب كتاجنب وحولها إلهي وعرور طرية طيبة إلهي وإسي إخواني عيالك وناقو ذا مركا الله إلهي وعيال وناقسن إسي عنق مركا ورشبا وإن أذوقنا كد داشي ساد عنقا كوكرين لهي ساكو تربيين لهي هدي عنق وينادو وأتسك ضيعضو إنه هذا ماشي أنا نجوقنا عنقي وان كوريني وينادي وان اسك ضيعني قال ان كسي دحديني اسكول بان كسي دحديني هدنا waxaan rabnaa inuu fiicnaado suurtagal ma ah waxaan suurtagal ahayn وهذا waxa jira gabay baa wuxuu ahaa carabi alqaahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i hadaad qof gardaduub u xirto oo labada gacmood ka xirto oo bad ku dhex tuurto oo dhahdi biyaha iska ilaaliyo haqooyin ma dhici karto inaad cunuga gaale iyo public school ku sii dhexdeeso tiraahdid diin fiicna oo wanaagsan oo ma dhici karto mid kalena wuxuu lahaa waman ra'a ghanaman fi ardi masba'atin qofkii ari ku raaca xoolo ku ilaaliya meel waraabe iyo xayawaanaad wax cuna leh wanaama anha tawalla ra'yaha al-asad oo ka seexda cunugii xoolihii qofku uu raacayay libaax iyo waraaba qaadanaya cunugaaga hadaad ka seexatid oo iska hilmaantid waxa qaadanaya gaal iyo waraabe iyo balaayo dhan ba qaadanaysa idan mawduuca hadaan guda gallo unsur liwaladika qabla an yulad cunugaaga intuu sa dhalanin horta u gargaar seed ugu gargaaraysaa cunugaaga maalin buu hiilo kaaga baahan yahay maalintu hiilada kaaga baahan yahayna waa maalinta aad hooyadii guursanaysid ama aabihii aad guursanaysid cunugaaga maalintaas miftaaxa ugu horeeya iyo waxa ugu muhiimsan waa markaad guursanaysid cunuga waalidkii zawjo wanaagsan reer wanaagsan ka dhalatay quraankii taqaana cunugii tarbiyeyn karta inaad guursatid aabbo wanaagsan oo quraankii yaqaana oo diintii bari kara cunugii inaad guursatid marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida waxa uu yimid nin ka eed sheeganaya cunugiisa wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay cunugayga aniga iima eka uu madow yahay fiirbal kaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa dhici karta wiilkaaga in uu u ekaaday oo uu ka soo siibmay xaaskaaga familigeeda macnaheedu waa maxay reerka xataa gabadhu ka dhalatay ama ninka ku qaba ka dhashay cunuga waxay ku yeelanayaan saameyn bay ku yeelanayaan uu kalar ahaan uu u ekaanayaa dhaqan ahaan uu u ekaanayaa dhinac kasta uu ka shabahayaa cunugu marka inaad cunuga fiirisid intaada guursanin ka hor cunugaad dhali doontid inaad u boos raadisid oo dhahdi qofkan guursanaya waa qofka ciyaalkayga aan raba inay la mid noqdaan inaad dhahdid waxa kale oo sunna ah qofku markuu guursado habeenka ugu horeyso arooska uu yahay inuu ducaysto ducadan waxay anfacdana nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam ducadu ku ducaysanaya waxa kamida xaaska in inta la qabto fooda meeshan timaha ugu horeysa inuu dhaho allahumma inni as'aluka khayraha ilaahay waxaan ku weydiistay khayrkeeda wa khayra ma jabaltaha alayhi iyo khayrka wixii aad gabadhan ku dul abuurtay wixii aad ayada dhex gelisay oo ku abuurtay khayrkeedan ku weydiistay cunugii baa kamida akhlaaqdii baa kamida cilmigii baa kamida dhaqankii baa kamida wax kasta oo ku jira gabadhan khayrkeedan ku weydiistay waa hadal aad u weyn wa a'uudu bika min sharriha sharteedan ka magan galay wa sharri ma jabaltaha alayhi iyo wixii aad ku dul abuurtay oo gabadhan dhex gelisay sharteeda cunugeeda shartiisa akhlaaqdeeda sharteeda dabeecadeeda sharteeda wax kasta oo khuseeya sharteedan ka magan galay xadiis Abu Daawud wariyay ducadii markuu qofku akhriyo oo xaaskiisii uu la dhaqmayo inta ayna labada qof waxba sameeynin inay hadana ducaystaan
والنبي يقول صلى الله عليه وسلم قفكم مركا وحاسكي سأتغي هدوده بسم الله مقع إلهي بانكو بالله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلهي والشيطان كان نقد ديره waxaad nasiisana shaytaanka ka dheere fiiri waxaad nasiinaysid oo caruurta ah waa habeenku u tagay ogow shaytaanka ka dheere nabigu xulay sallallahu alayhi wasallam hadii cunug lagu arzuqo oo cunug ay dhalaan shayaatiinta ilaahi baa ka ilaaliyo oo shaytaan ma u dhawaado waa ducaa aad weyn waalidiinta badankooduna way xaqiraan way iska yareystaan nin baa la yiri ducadaanu maqlay markaas waxa la yaxaaskaaga markaa u tagaysid bismillaah dheh suuyi horta miir aw markaas yaa miir qaba markii aad dhameysteen alxamdulillah dheh suuyi yaa tabar qaba macnaha miir ma hayo markii horena miir ma qabo markii dambana awood ma qabo markaas waxay cunug markii horeba lagu dhalay habaar iyo qaylo iyo dagaal iyo iday iyo kudayn ma hayo maxaa laga sugayaa khayr baa laga sugayaa khayr laga sugayo لكن عنق أذكار لو قلت علي بسم الله لو قلت علي اللهم جننا الشيطان الدعاء لو أخريي خير بالغ سوغيا هداد أوقاتد عنق إنو علال قلي هاد أوقاتد إن هاد مر والبأسوا علوش كدر أدعيس إن هاد أدعيس دعاء إلهي والشيطان كان كامل قليل إلهي والشيطان كان كامل قليل إن هاد أدعيس أوضا مر والبأي اللوبين وأعجبني وحي أعجب قليي ضدك ولا لها قاركود markay uur ka leeyihiin waad maqasheen waxay quraan u akhriyaan waxay leeyihiin cunugan waxaan rabaa inuu maqlo quraankan akhrinayo oo uu cunugaasu idageysto cunug caloosha ku jira quraan baa loo akhrinaya waa loo duceynaya way mar walba adkaar bay akhrinaysaa saadarteeda dhaqaatiirtu maxay dhahaan gabadhu markay uur ka leedahay inay xanaaqdaha laga ilaaliyo inay madax xanuun lagu abuuro iyo qayle inay gashaha laga ilaaliyo dagaalka ha laga ilaaliyo waxyaabaha qaylada oo dhan ha laga ilaaliyo cunugaana loo daneynaya caloosha ku jira baa loo daneynaya cunugii marka uu dhasho oo saas uu u soo dhasho hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba waa inaad ku faraxdid sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay yahabu liman yashaa'u inaathan wa yahabu liman yashaa'u dhukuur qofku rabana ilaahay wuxuu siiyaa gabar qofku rabana ilaahay wuxuu siiyaa wiil أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أما وحو اسغو ويلال iyo gabdho ويجعل من يشاء عقيما قفك رمنا وحو كدغا مدله ومدله إن قفك ilma lagu diido waa imtixaan inaad ku sabirtid ilaahina aad baridid ilaahi wuxuu leeyahay abaa'ukum wa abnaa'ukum la tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an abayaashin iyo caruurtaada midka ku wanaagsan ma taqaanid ma garanaysid meeqa gabar ah ayaa lagu liibaanay maryama bint ibraan gabar bay ahayd waa lagu liibaanay magacaad aragteen bay leedahay faaduma bint rasuulillaah gabar bay ahayd aisha gabar bay ahayd dhinaca kale markaad fiirisid wiilkii nabi nuux wiil buu ahaa gaalnimo ku dhintay aabihi buu caasi cunugii quraanku ka qiseeyay oo nabi oo khadar iyo nabiyullaahi muusa ay soo marayeen wiil buu ahaa haddana waxaa la leeyahay waxaa loo dilay خوفا لأن يرهق والديه إنه والد كي دبا لغا بقاي waa wiil waa la dilay meeqa gabar baa reerkoodii liibaan iyo wanaag u horseeday meeqa wiil baa reerkoodii imtixaan ku noqday way badan yihiin marka inaad cunuga waxa uu yahayba inaad ku faraxdid wadamada muslimiinta qaarkood oo inagu aan ka midnahay waa laga naxa gabdhaha markay dhashaan laakiin ma aha sax ma aha waa in lagu farxo gabadhu markay dhasho waxa dhici karta hadaad gabar dhashid dadku inay waxay ku leeyihiin markaad guursatid wiil iyo caano waa way gabadhii soo bini aadam ma aha soo xaq ma leh soo ayadana lama rabo in la dhaho gabar iyo caano soo lama rabo gabar baa bari waxay ku dhashay isbitaal bal qisadan fiiriya isbitaal bay ku dhashay walaalkii gabadhu u dhalaysay banaanku taagan yahay waa wadan muslima waxa soo baxay nurse-kii markaasay waxay tiri buu yiri waa ka xumahay I am sorry waasaan way dhaaftay way u tacsiyeynaysaa maxaa qalbigaaga galaya gabadhii baa dhimatay ama cunugii baa dhintay haddana mid kala soo baxday sidii oo kale haddana mid kala soo baxay dhakhtarkii baa soo baxay markaasuu yiri buu waa ka xumahay wixii dhacay iska raali ahow waan ku dhagay waan ooyay buu markaasaan ku dhagoon yiri buu yiri ii sheeg what's going on ii sheeg please ii sheeg markaasuu yiri buu xaaskaaga gabar bay dhashay Soomaalidii
isbitaalka ku soo booqatay wayba mushxaradeenba saalima gabar baad u mushxaradaysaan sayda annaga wixii gabar iyo wiil ilaahayna siiyo wa alxamdulillah yahabu liman yashaa'u inaathan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا واسكمت وحي إلهي كسيبا أذو ما قيب سيد إلهي با قيبية عنقو مركا ودشو أو بنان كيمادو وحال الربا مركا كوباد إن إلهي شيطان كما جنجلسي سيدو كما جنجلنيسا واتغنيسا مريم بنت عمران waxay ku celcelin jirtay oo quraanku uu sheegay wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytaan ar-rajiim xunuga inaad tiraahdo allahumma inni u'idhuka bihi haduu wiil yahay u'idhuka biha haday gabar tahay min ash-shaytaan ar-rajiim ilaahi waxaan ka magan galiyay xunugan shaytaanka inaad dhahdo waxyaabaha ay culimadu jeclaan jireen waxa kamida xunuga in lagu aadaamo dhagtiisa si kelimada ugu horeysa oo maqla ay Allahu akbar u noqoto imaam ibn Uthaymin markuu sharxayay xadiidka axaadiista aadaanka riyaa saalixiinka wuxuu leeyahay waxa fiican in lagu aadaamo sababtoo ah shaytaanku aadaanka uu ka cararaa waxa sugan cunugu marka uu dhasho in taxniik loo sameeyo taxniik waa maxay afka in loo geliyo timir wax macaan afka loo geliyo ayaa sunnah waxay leedahay Aisha radiyallahu anha hadith sahih muslim ka kusugan kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam kana yu'ta bis-sibyani fayubarriku alayhim wa yuhannikuhum rasuulka caruur baa loo keeni jiray wuu barakayn jiray afkana wuxuu u marin jiray tahniik waa timir iyo inaad wax afka u gelisid oo adigu aad cunuga anqarisid inagu waxaan dhihi jiray anqarin cunuga waa la anqariyaa waxa ugu horeeyo siinaysa xataa haduu isbitaalada gaalada ku dhasho inaad la gashid xaaskaaga markay dhalayso oo aad ag taagnaatid oo hadii aad ka baqayso xataa dhiigga iyo waxaas iyo inaad gadaal ba istaagi kartaa marka ay dhasho inaad cunuga ducada ku akhrisid inaad ku aadaantid inaad taxniik u samaysid inaad gaaladu waxa ay ku sameeyaan inta ayna wax kale ku sameeynin oo waxba la siinin inaad adigu u samaysid markaas kadib waxaa sunna ah cunuga in loo bixiyo magac fiican shiri waxaan oo dhan waa xuquuqda cunugu leeyahay markuu dhasho magac fiican in loo sameeyo imaam al-bukhari wuxuu wariyay sa'id ibn musayyib hadith tariiqiisa ku yimid aabihi buu ka wariyay aabihi inuu u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam anna abahu jaa ila nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala wuxuu ku yiri masmuka magaca nabiga ku yiri magaca قال وحيري حزن بالي ده ومرغو وي ومغا عاد قادر مركاسو وحو النبي كوي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحي انت سهل ما يسهل باطه وحنكون بحين يا سهل قال وحيري لا اغير اسما سمانيه ابي مغا ابهي اي بخيي ما بدليو ايو يري فيري بهذا الكاس حزن بالي ومرغو سهل بالو بخيي وقف سهلا او وناكسن او طيب او سمبل وي او قليف يا اديق يا دباته aan lahayn wuu diiday marka ninkii wuxuu leeyahay Saciid ibn Musayyib fama zalat alhuzunatu fina ba'du murugadii wali wayna la socotaa fiiri abihi baa diiday soo ma ahayn familkii oo dhan bay ku faaftay caruurtiisa baa ka dhaxlay imaam Haafid ibn Hajar wuxuu leeyahay markuu xadiidka sharxayay waxa laga wadaa buu leeyahay yuriidu as-su'ubata fi akhlaaqihim wuxuu la jeedaa akhlaaqdooda adkayd oo dib ahayd dad waxay noqdeen adag oo murugaysan oo akhlaaqdoodu ayna fiicnayn sababta magacii bay ka qaadeen fiiri xadiid kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa sugan inuu yiri maalmaha kamida xadiidkan bukhari iyo qeyrkii buu ku sugan yahay aslamu salamaha allah qabiilka la yiraahdo aslam waa nabadgeliyo fiiri aslam waxa weeye nabadgal way nabadgaleen magacooda saasa markaasuu nabigu wuxuu salamaha allah ilaahi baa nabadgeliyay fiiri ilaahi ha nabadgeliyo magacooda nabadgeliyaha Soomaa ilaahi ha nabadgeliyo wa ghifarun reer ghifara ghafara Allah laha ilaahi ha u dambi dhaafo fiiri waa dambi dhaaf ilaahi ha u dambi dhaafo wa usiyatu reer usiyana waa caasinimo waa reerkii caasinimada asati Allah wa rasuuluhu ilaahi rasuulka say caasiyan wa hadith bukhari u wariyay
fiiri magacii baa qofkii saameeyey oo dhib u keenay markaasuu xadiid kale imaam al-Bukhari uu wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam Suhayl ibn Amr markuu u yimid bay'atul Hudaybiyah sulhul Hudaybiyah heshiiskii Hudaybiyah nabigu muxuu yiri nin baa loo soo diray arrintii oo isku murugsan oo dhib ah ninka waxa la jiray Suhayl ibn Amr nabiga waxa la yiri Suhayl baa noo yimid markaasuu wuxuu yiri qad sahala lakum min amrikum amarkiini wuu idin sahlanaaday fiiri waa cunuga magaciisa ikhwaani marka qofka magaca loo bixinayo cunuga saameyn buu ku sameeyaa haddaad cunugaaga u bixisay Maxamuud wuxuu noqonayaa cunug la mahadiyo wanaagsan haddaad u bixisay Cabdurrahmaan wuxuu noqonayaa cunug naxariis badan haddaad u bixisay Cabdullah cunug cibaado badan haddaad u bixisay Cabdurrazaaq cunug risqi wato ilaahay u arzuqo haddaad u bixisid Xaliima haddaad u bixisid Maryam haddaad u bixisid Aisha haddaad magac fiican u bixisid cunuga wuxuu helayaa sifo fiican marka waa inaad cunuga magacaad u bixinaysa macnihiisa inaad ka fakirtid haddaad u bixisay Yurub maxay dhahaan Sterling Berlin waa magacyadeena qaar baa waxaad arkaysaa niman magac la dhaho alla yaabays cunuga waxa leeyahay lugay gacame ilay waxaas maxay tahay waa la habaaraya hatta intii dhibkii uu qabay balaaya ugu sii siyaadays waa cunug habaar la habaaraya magacyadaas oo dhan magacyada Soomaalida maxaa dhigi jiray waxaad maqlaysaa magac qofkii intaas oo magac waxa loo bixinayaa xun ah oo fiicnayn marka cunuga magac macnihiisu fiican yahay in loo bixiyo hadda wadankan waxa ku badan oo inaga nasaameeyay magacyadii gaalada iyo muslimiinta u dhaxeeyay baa la raadinaya fiiri waxa la leeyahay cunuga ha loo bixiyo magac gaal iyo muslim wuxuu yahay aan la garanayn waxa loo bixinayaa marka waxa loo bixinayaa magacyo sida Saara oo kale sida Aaram oo kale sida magacyadaas oo kale waxa la leeyahay gaal iyo muslim wuxuu yahay lama garanayo laakiin haddaad u bixisay Cabdurrazaaq Cabdurrahmaan Cabdulqaadir haddaad u bixisay Cabdulfataax horaa laga garanaya Maxamed magacyada muslimiinta laga cararaya dad Maxamed la yiraahdo Mow la baxay waa ogtiin yalla bixin magacii muslimka ka cararayaan Muusa waxa leeyahay Muusaas xagee waxaas ka yimaada Ibrahim Abraham marka magacii muslimka laga cararaya wakadalika gabdhihi waa saas oo kale marka cunuga in loo bixiyo magac muslim oo magac wanaagsan ah waxaana la ogaaday ikhwaani cunuga magaca loo bixiyo dadka magacaas lagu jeclaadaa idinku u fiirsada wuxuu jecel yahay qof walba dadka isku magac yihiin Soomaa وجعل يا هذا أركت أضل وير هذا مريم ضد مريم اللي ير هذا قف كسر مريم اللي هذا جعلان يسا وتأثير كمجعو سمايوي إن إخواني وحكله عجيبة عنق للربع عنق مركو لشيء عقيقة الله سمايو وانقل إن الله سمايو هدو ويلي هي إن لجذو سيد السنة إن لجذو إن مرول بعنق أجوك تيسد إن أتكو أخرسد أذكرت يدعاء إن أتكو أخرسد أذكرتها النبي صلى الله عليه وسلم وكسقنات إن عنق يركع الله بدأ هذا عمود أتكو أخرسد قل والله أحد سورة الناس سورة الفلق جركي سأتكم مسحدين نبي حسن يا حسين أيو أنتو سواقبتو ديجري أعيذ بكلمات الله تامات أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ كمان ويسقنات وحن إذن كم قلنا يا إلهي شيطان يا البني آدم يا وحك استوحن أيان إلهي إذن كم قلي إنه كعل علي يقفكو أو عنق مر البؤود دعيه أنت أسكدب عنق فيريا دعاء وآخر الشيء وود الشيء سنة ذي بعد راعي مقع في عم بعض الصميسي وضوء قشي إن إلا عنق سوجارو وقت جات كورين لهيد عنق مركز سوجارو وقت جات كورين لهيد مسؤولية كاسرا إلا الله بس أنا أنتو كجاري عنق ولا كوليايا وعنق وحمبر تواد أكتم ويريح الله بس أنا عنق مركو جارو وإن عنق كده داش إنك عنق إنتان إهمالي نو سكت ضيعنو أيام مركو وينادو بالوجود ذاليا وهم قبن كرو عنق وينادي لما تربيين كرو محل الرا مركز النبي صلى الله عليه وسلم حديث بوحو كله إن الله سائل إلهي وويديا كل رجل ننكستا عما استرعاه وحي وديبي حفظ إنه إلاليي
أم ضيع أما إنه ضيعي حتى يسأل الرجل عن أهل بيته إلى نينك لو ويديو خير كيسة عرورت هذا waa lagu weydiin mid baa lagu weydiin xaaskaaga waa lagu weydiinaya marka waa amaana ciyaalku waxaan idin weydiinayaa su'aal haddii maanta lagu dhiibto boorso dahaba waa amaano waxaan xaqiiqa in adduunku kula yaraan lahaa meesha dhigi lahayd soma waad ku rafaadi lahayd qari inta dhig meel baad aamin ageli guriga ha ka bixin ilaali war cunugii aad dhashay baa ka daran oo amaano ah boorsada dahabka iyo diamondka ah cunuga dhashay ayaa ka amaano badan oo ka adag marka waxa la rabaa cunuga inaad ilaalisid markuu yar yahay inaad korisid waxa la hadal waxa jira gabay oo ahaa innal ghusuna idha qawamtaha tadalat wala yalinu idha qawamtahu al-khashab geedka markuu soo baxo oo uu yar yahay hadii la toosiyo wuu leexdaa laakiin geed weynaaday lama toosin karo وكذلك عنق واساس وكلا وحليا قد ينفع الأدب الأحداث في مهل عنق يركا إذبت وينفع ذا وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب ننعر هلا إذب مقاته بل أدب نن قوسار أو 20 سنة جرا أما 8 سنة جرا أما 6 سنة جرا تربية ما تربيين كرت يتمرد عليك وكون مدحت كان يا ما قبن كرت لكن عنق يركا وقبن كرتا وتربيين كرتا ولذلك السلف كي وحيد يجرين عنقاقا لاعبه 7 تضبط سنة عنقاقا لا عيار وتضبط سنة أو يريه عيار سي وأدبه 7 تضبط سنة أدبي وتضبط كحكتا وصاحبه 7 تضبط كلنا لا صاحب وفي رصد تضبط أقوه الرئيس والله عيارد والنحريس ووالد نمو تضبط كحكتا وأدبين تضبط كحكتانا وصاحبتنمو إنه تضبطي وقدم بيسي أو صاحبتنمو ذا أهيد أيان ربنا إن عنقي سي عنق لبجيرة أنا كنترول أون دلو أون خصبنا أون وحكست أرمينا كدادعنا كما دادعين كرو ولذلك إخواني أن عنق عمري جيسا وحيابها أقومهم سواحات كمذا لبصانو عنق مركا أوجيرو إلا أو كجارة 10 سنة بلو في رصدا لبصانو عنق مركا أوجيرو waxay culimadu dhigi jireen ibnu sanatayn 2 sano cunuga jira waa cunugu marka uu ugu horeyso oo uu kaco uu soconaya waxbuu jiidaya waa taqaan ciyalka waa aragteen waxbuu jiidaya maanta dhan wuxuu rabaa inuu wax wadwado waxay sameyn jireen waxa loo gadaa wax weyn oo ku ciyaaro maanta dhan uu jiido oo uu riixso u koro meel weyn oo banaan baa la geeyaa soo u dhacdhaco u ordo oo socodka u barto waa ibnu sanatayn fiir waa lagu dadaalayaa marka uu gaaro 2 sano iyo bar markuu cunugu gaaro waxay dhihi jireen waxa la yiraahdaa sayyidullah waa marka ciyalku ugu madaxa adag yihiin hadaad u fiirsataan wax kasto dhahdo wuxuu ku leeyahay maya no buu ku leeyahay kuwa hadda meeshan jooga waxay yaqaanaan no kaliya wuxuu ku leeyahay no ma rabo caana ma rabtaa no biyo ma rabtaa no ma seexanaysaa no dadka haysta ciyalka u fiirsan 2 sano iyo bar cunuga jira maxaa la sameeyaa waa ina tarbiyeys maxaa ku tarbiyeynaysaa waxay culimadu dhahaan كلمات كسته أو يس يا نو نعم أما لا لو جد جواب ما بلا ويديه فيرب لما ويديه وحارتا إنا سيس جوس إنا سيسد وحلال هاي جوس كميان كوبا ديام سوا كويا ريا مش عادي له جوس مرة بتاع وحقوله مرة مركز هو وحقوله هاي إيه يرى أو يرينا مركز ساحشة اللي جارو ما حد ساحنا يسا ما سهل ساعة كده بعد ساحنا يسا وحقوله هاي هل ساعة كده بعد ساحنا يا هذا ما ساحنا يسا وحقوله هرد ما يسا نو مرة وين ساحده waxaa la yiraahdaa kale cunugaas waxa laga ilaaliyaa in guriga laga maqlo kelimada maya hooyadu inay aabaha maya ku dhahdo la inuu maqlo no inuu maqlo kelimooyinkaas dhan waa laga ilaaliyaa marka cunugi wuxuu aadaya dhinaci kale uu fiicnaanaya hatta lama amarka waa laga ilaaliyaa inaad dhahdid bax qolka aad lama dhaho waxa la dhahaa nakeen qolkan aadina uu ku raacaya fiiri waa cunugi markuu 2 sano iyo nus markuu 3 sano gaaro cunuga waxa la yiraahdaa waa marka cunuga uu ugu caatifada badan yahay fiirsada 3 sano markuu gaaro cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo uu la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa uu ku dhageysanayaa qisooyin hadaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaarayo 4 sano
waxay dhahan culimadu waxay dhigi jireen waqtigaas cunuga waxa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaac cunugu isbedela wuxuu isku bedelayaa inuu hooyadii maanta dhan hooyadii inuu agteeda fadhiyo oo uu la sheekaysanaysaa wuu maqlayaa uu ku dhageysanayaa qisooyin hadaad u sheegto wuu maqlayaa ilaa uu ka gaarayo 4 sano waxay dhahan culimadu waxay dhigi jireen waqtigaas cunuga waxa ku dhalatay wax la yiraahdo thawratul aatifa waxa weeye amal waxa waa inagoo niri oo kale cunugii wuu qarxaya asaga dhanba wuu dilaacaya wuu koraya marka dareenkiisa caatifada ah baa koraya jacayl badan ayaa galaya cabsi badan waa aragteen cunuga 3 sano jira wuu oohin badan yahay maxaa keenay oohinta badan mugdiga uu ka baqaa bahalada uu ka baqaa dadka dhan uu ka baqaya waa marka ugu horeeyo cunugu uu barto inuu hooyadii iyo aabihi wax ka qarin karo hadduu xasayo inaan la heli karin markuu 3 sano jiro maxay salafkii sameyn jireen waxay dhigi jireen cunuga markaas kale maadaama oo caatifad uu leeyahay waxay u sheegi jireen sheekooyin cunuga jacayl gelinaysa sheekooyin ku saabsan jacayl waalidka iyo ciyaalka isjecel waalidka naxariista badan ciyaalka naxariista badan baa loo sheegi jiray waxa looga sheekeeyay naxariista ilaahay waxa la dhigi jiray xagga fariiso waxaad ku celcelisaa ilaahay wuu i arkaa ilaahay wuu i fiirsanayaa ilaahay baa weyn ku celceli Allahu akbar subhanallah ku celceli waa la barayaa markuu cunugu 4 sano gaaro fiir tarbiya ku socota cunugu wuu isbedelayaa hadana muxuu isu bedelayaa thawra la yiraahdo thawratu suluk wuu qaadanaya dhaqan buu sameynaya dhaqan cunugii ooyay shalay oo cararayay waxa arkaysaa koobka uu ka darbaynaya uu laadaya wax kasta uu jabinaya wax kasta uu ku ciyaaraya gurigu burburinaya waa marka inaga ciyaalka aan lugta ka xirro waxa arkaysaa hooyo Soomaaliyeed cunug waxay wadataa 4 sano jira amal silsilada ugu xiran ay baad moodaa way jiidaysaa waa aragteen way jiidaysaa waxa arkaysaa kuwo laba qaban karo say iyaduna u celinaysay oo ugu qaylinaysa cunugiiba gacantu ka baxaya waxa la yiraahdaa cunugu markuu intaas la eg yahay oo dadka caruurta ka hadla waxay dhahaan cunugaas oo kale waxa lagu tarbiyeeyaa oo lagu barbaariyaa in uusan amar adag looma sheego hadaad ha sameeynin ma dhaqaaqi kartid fadhi ma yeelayo waa inaad markii mashquulisid cunugaas marka suluuka cunuga markuu kor u kaco oo sanadka shanaad uu gaaro cunuga wuxuu gaarayaa marxalo kale oo la yiraahdo thawratul aqli buu bilaabayaa وعيالك وارتي markay 5 sano gaaraan waa marka ugu reeyay fakaraya cunugii waxbuu fahmaya su'aaluhu maanta oo su'aaluhu weydiinaya wuxuu leeyahay asaga su'aal gabadha walaashi su'aal ka weydiinaya cirku su'aal ka weydiinaya wuxuu dhici karta inuu ku yiraahdo hooyo chicken baa tustay muxuu yahay waxaan chicken waa chicken xagee uu ka yimid ukuntaan cunasay chicken u noqotay haddaad hadid aad istiraad u sheeg uma sharxi kartid qaar baa waalidiinta waxay leeyihiin oo midaan cunno waa la duray marka ilmo ma noqoto gaas wuxuu ku leeyahay meesha laga duray tus waa kun iyadoo dhan duuban xagee laga duray uma sheegi kartid maxaa la sameeyaa waxa la isku dayaa cunuga researchka in la bar sida wax loo baaro waxa leedahay kitaabaa loo soo gadaa buugaag baa loo soo gadaa cilmiga ka hadlaya waxa leedahay markuu ku weydiiyo kaalay waan baaraynaa qolkaaga maktabada ageel librariga ageli waxaad tiraahdaa kitaabka intaad u kala bixisid ii qabadhe uu qabanaya waad rogaysaa markaad meesha soo bixisid ukuntu waxay ka samaysan tahay waxaas u sharaxdid wuxuu iska dhigayaa inuu asagu fahmay laakiin haddaad been u sheegtay ama wax walba tiraahdaa anaa aqaana wuu ku fahmaya hadduu ku fahmay inaad ciyaarsiinaysid oo beensiinaysidna kuguma qancayo walidaalika markaas oo kale waa markay dhihi jireen xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam cunuga xataa idanka waa la weydiistaa wixiisa lama taabto markuu 5 sano gaaro nabi sallallahu alayhi wasallam caana loo keenay wuu cabay wiil yar baa midigtiisa fadhiyay niman odayaal ana way fadhiyeen markaasuu nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma ii idmaysaa inaan nimanka waaweyn siiyo waa cunug yar markaasuu wuxuu kuma idmayo waa cunuga baawar buu isticmaalaya cunuga yarka kuma idmayo markaasuu nabigu wuxuu waayahay qaado حسن النبي صلى الله عليه وسلم ويلكيسي أيام ما هل تمر أقاطي أو صدقاء أفكو قليه النبي يقول حكوية كخ أخ طف مركاسوي وطفي سوي مياذن أغين إننا صدقاء النوب بنانين أو صدقاء أنان عنين وريزن فيري هو ريزن قرينيا هو شيغيا وإن لو قد دي وإن أو شيكتي
haddaad tidhaa ha taabanin muxuu samaynayaa wuu taabanayaa innaga maxaan samaynayna suusa u taabanna waan xiraynaa lugtaan ka xiraynaa sariirtaan ku xiraynaa ma soconayso waa inaad cunuga u sheegtid ood ka dhaadhicisid markaasoo kale markuu cunugu 6 sano gaaro cunugu wuxuu gaarayaa marka la yidhaahdo التمركز على الذات marka naftiisa buu ku fakaraa inta badan wax kasta anaa le waa in aniga ciyaalka la igu jeclaado waa inuu wax kasta asaga guriga ugu khatarsan waad aragteen ciyaalka marka 6 sano jiraan wuxuu wax kasta inuu asagu leeyahay 7 sano markuu cunugu gaaro iyo 8 sano iyo 9 sano waa 3 sano oo cunuga ugu muhiimsan noloshiisa ilaa 10 sano 4 sano 3 sano oo 7 iyo 8 iyo 9 ah waxaa la yiraahdaa cunugu 3 darajo mara mid waa ta'ammul inuu fakaro cunuga ciyaalka 7 sano jira way aamus badan yihiin nabigu muxuu yiri saan uga faa'iideysano muru awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u 7 7 sano markay jiraan waa cunugu fakaraya qalku isku soo xiraya kaliya fadhiisanaya waxa tiraahdaa tuko salaada u sheeg fiiri salaada u sheeg ilaahay ka cabsadhe ilaahay cabsidiisa uga sheekee ilaahay uga sheekee awoodiisa wuu fahmayaa markuu 8 sano gaaro cunugu wuxuu samaynayaa marxalatu tajrubadu waa maxay inuu isku dayo wax kasta inuu asagu baaro oo uu fahmo waxa leeyahay icaawi marka ila shaqee inuu kula shaqeeyo cunuga haddaad ari qalaysa xataa aad haraga ka bixi adiga iqa qabo inaad dhahdid waxa samaynaysa guriga inaad tiraahdo clean garee markuu 9 sano gaarana cunugu wuxuu samaynayaa wax kasta inuu yaqaano isku dayaa wax kasta xataa adiga wuxuu kale waa khaldan tahay waa cunugu marka ugu horeysa waalidka uu ku dhawaad khaldan tahay wuxuu ku leeyahay no it's not like that mommy it's not like that hooyo saas ma aha aaba saas ma aha saas weey ana iskuulka saasaan ku dhigtay cunugii wuxuu samaynayaa wax kasta inuu yaqaano iska dhigayaa waa inaad marka taqaanid cunugaaga saad ula dhaqantid ikhwaani 10 sano markuu cunugu gaaro waa markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam cunuga salaada ku dila oo ku khasba maxaa laga wadaa xikmadda ku jirto waxa la yiri waa marka cunugu uu raadiyo al-istiqlaaliya inuu madax banaanaado banaanka inuu aado inuu saaxiibo samaysto inuu guriga ka baxo waa marka ay bilaabanto teenage-ka meesha ugu horeysa ciyaalku ay ka soo galaan haddaadan cunugaaga 10 sano maalintuu gaara gacan ku dhigin weligaa gacan kuma dhigi kartid ha ku fakirin wuu ka gacan baxay 10 sano markuu gaaro waa inaad mas'uul ka noqon kartid waxaan marka galaynaa mawduuca qaybta ugu dambaysa oo ahayd qaybta mawduuca ugu dambaysa oo ahayd cunugii markaan inta ka soo sheekaynay oo 10 sano uu gaaray raganimadii baa ka muuqata wiil yar buu yahay waa arteen dugsiyada maanta oo muruqooday fiirinayaan 10 sano uu jiraa gabdhaha maanta oo make up bay sameynaysaa way isqurqurxinaysaa way labisanaysaa way timay deysanaysaa waxay iska dhigaysaa qof dumar ah weynaaday bas ka dhigaysaa way hana qaaday cunuga markaas oo kale waxa la rabaa inaad taqaanid saad cunugaaga ula dhaqmi lahayd dhaqanka cunuga marka aad kula dhaqmaysid ayaana wax yar insha Allah ka sheegaynaa waxa dhaqankaas kamid ah horta waad aragteen ciyaalka 7 sano markuu gaaro waa inuu cunugaagu hadaa tahay qof fiican ugu yaraan waa inuu yaqaan juz quraan ah sida loo tukado adkaarta la akhristo sida dadka waaweyn loo ixtiraamo waa inuu wixii wanaagsan garanayo oo cunugaaga aad la hadli kartid dad baa ku soo booqday inagu waxaan naqaanaa cunugii waa la cayrinaya ama waa lagu qaylinaya waa la canaananaya asaguna maanta uu ku rabshaya hooyooyinka waa aragteen markay telefoonka qabsato wuu qasaya laakiin haddaad la hadli kartid oo dhahi kartid aabo ama hooyo dad waalid ah noo yimid waa ehelkeeni waa adeerada iyo eedooyinka waxay rabaan inaan ixtiraamno ixtiraamka ay igu leeyihiin waa inaan u sheekeeyo adigana ixtiraamka ay kugu leeyihiin waa inaad ixtiraamtid oo ka aamustid oo biyo u keentid oo shaah u soo karisi aad dhahdid cunugii wuu isxil qaamaya haddaad laakiin ku dhahdid wariyaa dameer yahow wariyaa doqon yahow wariyaa saqajaan yahow wariyaa tuug yahow wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu tuug yahay wuxuu iska dhaadhicinayaa inuu dameer yahay xataa sida dameeruhu u qaylinaya bay culimadu dhaheen wuxuu iska dhaadhicinayaa wax kasta oo ku dhahdid xataa uu ku xadaya cunugii uu ku xadaya marka dhaqanka cunuga lagu dhaqmo waxa kamid ah ikhwaani markasta waa arrin inaga naga maqan cunugu wuxuu leeyahay xaq ducaa in loo duceeyo
fiiri inaan cunuga u ducaysid nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo anbiyadii ilaahayba waxaa ka sugan inay carruurtooda u ducayn jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi saddex duco waa la aqbalaa shaki male waxaa ka mid ahayd dacwatu lwaalidi liwaladihi waalidku ducada uu waladkiisa u duceeyo cunugaaga waxaad ducadaad u ducaysid waad garanaysaa ninkii qur-aanku sheegay suuratu axqaaf markuu koray oo ilaahay uu nooga sheekeeyey oo uu gaaray 40 sano uu koray oo uu caqli yeeshay oo uu gaaray awood yeeshay muxuu yidhi wuxuu leeyahay rabbi awzicnii an ashkura نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلهي عرورتي وناجي فيري إنا تكتب إلهي عرورتي وناجي إلهي عرورتي وناجي إنا دهدي النبي الله إبراهيم وينيجي شيء إنه ديجري ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلهي أني عرورتي إذا كوا الصلاة كذا نقدك عيالك ويكون مغليان إنا دعينيس ويكون مغليان النبي صلى الله عليه وسلم ducada uu ciyaalkiisa u ducayn jiray waxaa ka mid ah xasan inuu ku dhihi jiray allaahumma innii uxibbuhu fa axibbahu ilaahayo waan jecelahay adiguna jeclow bukhaari baa wariyey riwaayad kaloo bukhaari wariyey wuxuu leeyahay xasan iyo xuseenba wuxuu ku dhihi jiray allaahumma innii uxibbuhumaa fa axibbahumaa ilaahayo waan jeclahaye adiguna jeclow ikhwaani fiiriya tasawir cunugaaga oo adiga aad ku leedahay ilaahayo waan jecelahay adiguna jeclow seebu dareemaya 12 sano jira 13 sano jira seebu dareemaya sacaada farax buu dareemaya cunugi waxay warisay xadiis imaam ahmed uu wariyay salama waxay leedahay markii la xuseen waa la dilay ayay way calaacashay markaasay waxay tiri ma waxay dileen xuseen markaasay ka sheekaysay markaasay waxay tiri maalin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam faaduma u timid faaduma waa gabadhiisii markaasuu wuxuu ku yiri ina adeerka iyo labadiisii wiil ii keen waa cali oo ninkeedii iyo labadeedii wiil xasan iyo xuseen way keentay ayadoo wada labada wiil say nabiga u jeclaayeen waa aabahood camal waa awowgood markay arkaan oo xagga ay arkaan isagoo soo socda carabkay u soo bixin jireen soo u shumiyo fiiriya carabkay u soo bixin jireen intay soo qoslaan soo u shumiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ciyaalkiisa camal markay u yimaadeen nabigu go'buu qaatay ama buste maruu qaatay maradii buu isku daday faaduma iyo cali iyo labadii wiil buu ku daday shantoodiiba gacantuu ku qabtay gacantii kaluu taagtay markaasuu wuxuu yidhi allaahuma ahli ilaahayow reerkayga fiiriya bal adhib canhum الrijsa ilaahayow wasakhda iyo dhibaatada ka dulqaad watahhirhum tathiiran ilaahayow taahiri saddex mar allaahumma ahli fiiriya bal allaahumma ahli ilaahayow ehelkayga xumaanta ka qaad oo taahiri saddex mar salama way maseerto waxay tiri rasuulka ilaahay anuu soo ehelkaaga ma ihi naasuu nabigu yiri haahe adiguna bustaha soo gal ducadii buu ku akhriyay waxa kale ikhwaani qodobka labaad ah cunuga inaadan habaarin waad aragteen waalidiinta waliba aabayaasha waxa dhici karta inay ciyaalka habaaraan hooyooyinkana iska badaaba waxyaabaha sugan nabiga waxa kamid sallallahu alayhi wasallam inuu dhigi jiray xadiis sahih muslimka ku sugan la tad'u ala anfusikum naftina ha habaarina adu naftaada ha habaarin alla gablamayay balaaya igu dhacdayay hoogayay hadhihin hays habaarin waliga hays habaarin wala tad'u ala awladikum arurtinana ha habaarina arurtaada ha habaarin hadhihin balaaya kugu dhacday cirka lagu qaad bala ku daftay saan ilaahi ku gal hadhihin ولا تدعوا على أموالكم مالكينا هبارنا بابور كاغا iyo gurigaaga gurigan baas baan nacay baaburkan baas baan nacay hadhihin wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam la tuwafiqu min Allah sa'atan sa'ad bad hadad sa'ad hawaafaqina yus'alu fiha ata'un ilahi wax la weydiisto waqti ilahi wax la weydiisto fayastajibu lakum marka ducadi uu idin aqbalaya habaarkii uu ku qabanaya ilahi waxa tiri ilahi kan balaayo ku rid balaayo ku dhacaysa ولا شك يا إخواني markay ciyaalku way weydiiyaan waxay dhahaan dugsiga macallin haday hooyada xataa ay iga gardaran tahay haday habaarta ma igu dhacaysa fiiri xataa hadaad ka gardaran tahay adigu hadaad habaarto cunuga way ku dhacaysa xataa hadaa adigu ka khaldan tahay
hadduu asagu khaldan yahay iska badaaba weligaa cunugaaga ha habaarin inaad u kasta ma ahan haddaad aragti balaayo hadda inaad ku dhacdo oo balaayo dafta habaar haddii kale ha habaarin ikhwaanii waxaa kale oo qofka muslimka ah laga rabaa inuu cunugiisa ku tarbiyeeyo oo uu mar walba kula dadaalo in cunuga uusan cay barin balu fiirsada cay inuusan barin canaantana inuu ka yareeyo canaanta badan cunuga uma fiicna xataa hadduu khaladaad sameeyo waxay culimmadu dhahaan cunuga ugu yaraan 10 khalad markuu sameeyo 5 ka mid ah waa laga indhalaabaayo waa la ilowsiiyaa haddaynan ahayn wax weyn oo macsiyo ah haddaynan ahayn nebiga kudayashaa noogu sugan walana fii uswatun xasana xaasaskiisa markay qaarkood war ka sheegeen war uu ku qarsaday caaisho wuxuu ilaahay ku soo dejiyay waid asarra an-nabiyyu ilaa bacdi aswaajihi xadiithan فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض قارب أشيغي أو كعنانتي قارب وكجيسا واسكدافي فيري حاس كاغا عيال كاغا وحا اي قلان إن القاركو اسكدافتيدو اس إلوسيس وحوال بهداد كو قبتid cunugii oo dhan uu khalkhalaya kalsoonidii baa ka dhumaysa cunuga waxa la rabaa inuu wax isku taray gareeyo inuu khaldamo inuu wax saxo hadaad wax walba tiraahdo ha sameeynin cunugii kalsoonidii baa ka dhumaysa waxa kale oo kamida tadriibu tifli ala taa'ati mundu sigar cunuga asagoo yar inaad ku barbaarisid taacada ilaahay gabdhihi ayagoo yar xijaabka wiilasha ayagoo yar xishoodka قرآن أخرسك هذا الكمعان إن أذكر تربيسين وينشأ ناشئ الفتيان فينا وهذا القبل بوها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وحي أبيه بري أي عنق كبر بارا وحي أبيه بري محال قوضة عنق وحي انتو يرى ما ننتو للشيء إلا ما ننتو توبان كسو قاري وحاد كوة دي با عنق مركو وين هذا كسو بحي نبا النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وحكيري حديث البخاري كسوغان رسولك إلهي وحي أن سمين جري حقي آدي دونان نبيكم حكيري أسلمت على ما أسلفت من خير وحي خيره كوهر مري واتقدوا الإسلام تي أواد وضطا بل قفك وسيزي سنية عنقي وكبضانيا ووضيا وليس خير كاس وحاكمي ذا تشجيعه على الخير عنق خير كأن لقد دير رجليه من العنق دير رجليس وترى يقرأ القرآن بأخريه هديهن عرب كاغاحن ولقى سان هذا هيد أذوق الدمين باتهاي سكول كيبو امتحان قالي ودعي أما وحو كاني درجة هو سيسا دقالها كور كاني وحاد هذا وترى يقرأ يسي نقص تامنا وكسر في عنان دونتا النبي صلى الله عليه وسلم لما ويل بقى يبن غزوة أحد لما ويل ويل اليريرة وحال كاللي جري معاذ بن عفراء يا معاذ بن عمر بن جموح labadoodiiba waxay isku haystaan Abu Jahl ana dilay nabigu soo dhiirigelinay fiiriyo wuxuu ku yiri safety ma masaxdaan oo dhiigi ma ka tirtirtaan kaase waxay dhahan maya itusawiir wuu fiiriyay nabigu wuu fahmay mid ka dilay laakiin wuxuu ku yiri kilaakuma qatalahu labadiinuba waa disheen markaasuu ninka wixii laga furtayna wuxuu siiyay Muaad ibn Amr macnaha isaga dilay way فيري عنق إلا يراهذا ما شاء الله واتراي قريسي واتفي عنتهاي you did excellent قال هذا أفير صدا عيالك إنه عند الله ما هي ما أنت لهم كوذان excellent very good واو عنق السيل الله وضو وحسوها يستا إنه قالوا إنه نجي عليهم سمعنا نارك وحكوليه هاي وحكسون سمعي معلمات يسكولك excellent بيد هذا وحكسون سمعينه هو يد قيلة كسر رئيس معناه هذا وامع عنق وكنا عيا وإن المركب عنق ديرجلسي أو كان مقلة كلمة ديرجلينا إنه كان مقلة وأرتين أنك مركب عيال كأهين الدون كلا وحن وجع على جري مركو أبهاي إدها إلى خير هسي أو إدها وفي عنته مركو وحيد درا أو إنتان أرض عن ساقبته وعودي جري ورما دحلات كسوق قاعد يقول ما بقى جارينه مركزان فرح جري مركز هذا وحوليه أذيك أرض بدن إيه ساقبه وأرض يسل إيه أمانه وساقب نيسا مركز كنت وحوليه هاي ما شاء الله ورنيه هل من ما يسأل ساقاده صار ما أنت ونسي أردي حد عنق دجال كور كنتي دجال هدات كور كنتي وكنا عيا عنق وكنا بسنة يا مر هذا وحبه كوما قبناي وحوليه anyway
dugsiyada saasay dhahan anyway wax walba on try gareeyo I will never get something so why do I care waa arteen maxaa iga galay aniga wax walba waxa leeyahay you fail waa dhacday bal leeyahay marka cunugii nafsadiisi kalsoonida ka dhumaysa in la tashjiiciyo marka waa fiicantahay lagu yiraahdo haddii ay dhacdo wala fiirsada inuu cunugu sameeyo wax xaq uusan u lahayn laakiin uu isleeyahay xaq baad u leedahay ma aha inaad la dagaashid waa inaad horta u sharaxdid inuu khaldan yahay inaad tustid waxaa dhacday maalmaha kamid ah xadiis Imam Nasa'i uu wariyay wiil taabiciintii kamid ah dhijray Qays ibn Uyaad ayaa safka hore galay Ubay ibn Ka'ab baa ka soo qabtay fiiri seebu dareemaya cunugaas muu xanaaqay oday baa gadaal iga jiiday gadaal buu igeeyay salaadii marka laga buuxo yeeray saxaabigan fiiriya gaasoo wuxuu igu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuuna amray inaan anagu ku xigsanno caruurtuna ay gadaal maraan fiirso u tarbiyeenayo waan fahmay buu yiri maalintaasaan fahmay marka inaad dahdid waxaan dadka waaweyn baa loogu talagalay ciyaalka yaryarka ana looguma talagalin arintaasna kuma jirta hadda ogaada waxyaabaha xunxunka inagu maxaan sameeynaa bahalkan HBO iyo balaayay fiirsanaysa waxay leedahay hooyo waxa loogu talagalay dadka adaltiga adoo qolka gal ma saxba ma ka yeelaya cunugaas markaad baxayd buu asna try gareynaya isku dayaya inuu wixii arko laakiin haddii wixii wanaag ah dadka imaanaya waad dhihi kartaa waxaan waxa loogu talagalay dadka waaweyn adigana saana tahay hooyo laakiin inaad wixii u sharaxday cunugii waxaa kamid ah ikhwaani cunuga الحنان والتقبيل عنق إلا نكذا أو جعل كأركو إن أجعش عنق أقولوا فهمه نبي فاضم نكذا قبديسة أبو بكر قبديسة عائشة وشمين جري نبي ويلكس إبراهيم وشمين جري حديث بخاري غير كسوغان ننكر هير باديها ويرى أنه عيال كان ما بدون كان نبي وكو إنكره النبي صلى الله عليه وسلم عنق بشميي نبى يري تبويل باندلا ولا جميت كم إذا مرن كنن نبي وحوي هدينا حريصة إلهي كاسي بمحن كو قبان كرا معناها ضوام حي وحديع كرت إني جيران والدين ولي عنق سأن وناك تسن وحكولي هي عنق عن بين طالما تصو ان وحنكسو ختمه يا اون ugu dambaysiinaya insha Allah cunuga intu yar yahay in la ciyaartid nabiga xataa ciyaal waxa jira uu biyo ku tufi jiray wala ciyaaraya biyo ku sayraya way qoslayaan iyaguna waxa la rabaa cunugaaga marka uu yar yahay inaad macallin fiican u geysid waxa la rabaa cunugaaga xataa markuu weynaado inaad ka harin gabadhaada markay qaan gaarto inaad ka harin xataa markay guursato inaad ka harin nabigu gabadhiisa Faaduma iyo Cali intuu albaabka ku garaaco ayuu wuxuu dhigi jiray wartukada oo kaca kafiiri ciyaalka say u madax adag yihiin waa gabadhiisi Faaduma iyo Cali markaasay waxay ku dhaheen cunugaaga marka wuxuu sheegtay wuxuu ku leeyahay hooyo qof weyn baan ahay I know what I'm doing igada waan ogahay waxaan sameeynayo saasay sameeyaan nabigii ku dhaheen ciyaalkiisi Faaduma iyo Cali baa waxay ku dhaheen markuu kaco tukada ruuxdeena Ilaahay baa iska laho qaatay markuu soo celiyaan kacaynaa fiiri قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بني آدم كو مدح أدق يسوي ده يكتجي إخواني إن شاء الله وحنكسر ختمة يا إن أتكئل لسعون قالوا إنه كأركه وحد الشيء أذوق إن هذا السمينين فيني وحد السمين يسا يا وحد الشيء إن كل الدوانين وحد الحجاب كحراء إن أذوق حرت وحد السلاة التكو إن أذوق تكنيسي وحاتر القرآن كآخر إن أذو آخر نيسي وحاتر السجار كإسكدا إن أذو إسكدا ينيسي إن أذو واحد الشيء أذونا أستميسد إلهي وحان كبر يا إنه ذرية صالحة عن النصيو النقدن كويننا ونهجاتيو والله يقول الحق ويهدي السبيل